Akhyaarta sharafta badan ku soo dhawaada kanaalka dhacdooyinka dunida Tube. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo riix subscribe-ta si aad noogu xidhnaato, sidoo kale like-ta taabo si ay dhiirigelin noogu noqoto. Maanta mawduuca waxaan ku soo qaadan doonaa taariikh ku saabsan Hindida cascas ee iskale asalka dalalka ama qaaradda Ameerika. Dadka asaliga ah oo sidoo kale loo yaqaan Hindida Mareykanka. Dadka asaliga ah iyo erayada kale waa dadka asaliga ah ee Mareykanka marka laga reebo Hawaii iyo dhulalka Mareykanka ee kale. Waxaa jira 574 qabiil oo federaal ahaan loo aqoonsan yahay oo ku nool gudaha Mareykanka, ku dhowaad kala bar kuwaas oo xiriir la leh kaydinta Hindida. Erayga Hindi Mareykanka wuxuu ka saarayaa dadka u dhashay Hawaiianis iyo qaar ka mid ah dhaladka Alaskan, halka dhaladka Mareykanka sida lagu qeexay tirakoobka Mareykanka ay yihiin Hindi Mareykan ah oo lagu daray Alaska Native ee dhammaan qowmiyadaha. Tirakoobka Mareykanka kuma jiraan Native Hawaiianis ama dadka u dhashay Hawaiianiska, sidoo kale kuma jiraan Harmonis iyo Comoros. Taa beddelkeeda waxaa lagu soo daray kooxaynta tirakoobka ee dhaladka Hawaiian iyo jasiiradaha kale ee Pacific-ga dhaca. Dhaladka Mareykanka boqolkiiba tirada dadka asal ahaan ka soo jeeda gobolka Mareykanka iyo gobollada dhaca Canada. Wadarta tirada dadka Mareykanka iyo Alaska Native xafiiska tirakoobka 2010 ee dalka Mareykanka wuxuu tirakoobay hal tartan 2,932,248 ayaa la diiwaangeliyay isla sanadkaas marka lagu daro mid ama in ka badan oo ka mid ah jinsiyadaha kale ee ku taxan oo iyana lagu qiyaasay 2,288,331. wadartuna noqotay 5,220,579. Wadarta guud ee dadka Mareykanka oo leh gobollada aad u tiro badan, gaar ahaan galbeedka Mareykanka. Beelo yaryar ayaa sidoo kale ka jira bariga Mareykanka oo loona yaqaan languages Native American, waxayna leeyihiin luqado u gaar ah oo ay ku jiraan Navajo, Central Alaskan, Yupik, Tlingit, Haida, Dakota, Sioux, Western Apache, Creek iyo Cherokee, Choctaw, Creek, Kiowa, Comanche, Osage, Zuni, Ogne, Shawnee, Winnebago, Owibche, Kri, Odam. Waxay kaloo ku hadlaan qowmiyadahaasi Ingiriis, Isbaanish iyo Pidgin Native. Sidoo kale qabiiladan ayagana waa la baabi'iyay. Waxay diin ahaan u haystaan 2 diimood oo Kiristani ah, waxayna kala yihiin Protestant iyo Catholic. Adiga ee u gaarka ah qabiil kasta ama racan walba waxaa ka mid ah qowmiyadaha la xiriira dadka asaliga ah ee Mareykanka, dadka asaliga ah ee Mexica, dadka asaliga ah ee Canada, dadka asaliga ah ee Koonfurta Ameerika, kuwaas oo ayna kala ah 2 qaybood oo ah Métis iyo Mestizo. Aabayaashii ku noolaa Mareykanka. Dhaladka Mareykanka ayaa yimid waxaa hadda Mareykanka ah ugu yaraan 15,000 sano kahor, laga yaabay in badan oo hore laga soo bilaabo Aasiya iyada oo lasii marayo Beringiya. Dadyow kala duwan, bulsho iyo dhaqamo kala duwan ayaa markii dambe soo baxay. Gumaysigii reer Yurub ee Mareykanka oo bilowday 1492 wuxuu sababay hoos u dhac ku yimid tirada dadka Mareykanka u dhashay, iyadoo lasoo saaray cudurro, dagaallo, nadiifin qowmiyadeed iyo adoonsiga. Markii la aasaasay Mareykanka oo qayb ka ah
siyaasaddiisa dejinta gumeysiga wuxuu sii waday inuu la dagaallamo oo xasuuq ka dhan ah kula kaco dadka asalka u ah Mareykanka, kuna qasbay mid laga soo bilaabo 1960kii. Dhaqdhaqaaqyada go'aan qaadashada ee dadka Mareykanka u dhashay waxay keeneen isbeddello ku yimid nolosha dadka dhaladka ah ee Mareykanka. Inkastoo ay weli jiraan arrimo badan oo casri ah oo ay wajahayaan dadka Mareykanka u dhashay, maanta Mareykanka waxaa ku nool in ka badan 5 milyan oo dhalad Mareykan ah, halka boqolkiiba 78 ka mid ah waxay ku nool yihiin meel ka baxsan kaydka. Halkan waxaa inoogu barnaamijkeena uga hadlayna taariikhda hindida cas ee asalka u leh qaaradda Ameerika. barnaamij lamid inta ku kulmi doono waxaan kaga tagay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.